السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ميل كستو aad joogtaan waxaynu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbinaynay qisooyinka cajiibka ah ee aynu ku soo gudbino channelkeena qisooyinka Nadaara Laba. haddaba channelkan qisooyinka Nadaara Laba waxaynu idinkugu haynaa inaynu idinkugu soo gudbino qisooyin aanu isleenahay dadku waxbay ka baran karaan oo ay ka faa'iidi karaan. haddaba qisadeena toddobaadkan waxaa la yiraahdaa qaatilatu shariifa, gabadhii wax dishay ee haddana sharafta badnayd. gabadhii dilaaga ahayd ee sharafta badnayd u bixiyay qoraaga qisooyinka aynu ka soo qaadanayno ee la yiraahdo Abu Dalaal al-Hamrani. qisadani waxay dhacday sanadkii 2008 waxay ka dhacday magaalo ku taala waqooyiga waddanka Lubnaan. wuxuu ku sifeeyay magaaladaas inay ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan ugu cajiibsan ee loo dalxiis tago Lubnaan. haddaba meesha waxaa ku noolaa sida uu yiri wiil yar oo Suuriya dadka ka soo haajiray ah oo Lubnaan yimid. da'diisu waa 21 sano jir. wuxuu la nool yahay hooyadiis iyo gabar walaashiisa oo la yiraahdo Basma. wiilkii waxbarashada kuma fiicna, shaqo kuma fiicna, waa mid lazy oo tacbaan way. intaas kuma ekaane gabar magaalada dhinac ka degan oo reerkoodu Lubnaaniyiinta xogaa wax haysta ah ayuuba iska jeclaaday. gabadhaas uu ninkan ku qabsaday. gabadhuna waa 17 sano jir. jacayl waxaa dhacay lagu leeyahay cajiib ah, laakiin waxaa ka dambayn doona musiibo cajiiba ka dambayn doonta. jacaylkii labadii wiilkii iyo gabadhii aad isu jeclaadeen. gabadha reerkoodu waxay soo ogaadeen in gabadhoodu ay wiilka xiriir la leedahay Suuriyaanka qaxootiga ah. way u yeereen, waxay ku yiraahdeen dhageyso, waa inaad cilaaqada iyo xiriirkan aad la leedahay wiilka Suuriyaanka ee qaxootiga ah aad halkan ku joojisid. khalaas Nadaal la yiraahdaa, walaalkeed ka weyn waaye. aabaheedna waxaa la yiraahdaa Cali, laakiin wuxuu ku magac dheerayaa Abu Nadaal. Abu Nadaal la yiraahdaa, wiilkiisa Nadaal la yiraahdaa. Abu Nadaal marka hooyada martay gabadha hooyadeed way u sheegtay, waxa ku jira aabaha waa halis baday, waana rajul musallix, macnaha nin hubaysan waaye. odaga hubkiisa ma dhigo, meesha meel baadiyo kala waaye. odagan marka waxay tiri waa wareersan, wuxuusan raalli ka ahayn haddaa isku gasho wax kasta ka suura galay. gabariyay ninka miskiinka ee aan waxba haysan, aan wax baran oo shaqaysan oo qaxootiga ah oo ruuxa isaga haray tiri. gabadhu waa la cabsiyay. wiilkii dhowr maalmood gabadhii ma arkin, wax xiriira ma jiro. isagana fariimaa loo diray rag dhalinyaro waxaa lagu yiri gabadha isaga nin fiyowmati Abu Nadaal gabadhiisa ka yuusan inta ku qabto si fiican ku garaacin. marka dikii waa haridiin cunugii Suuriyaanka ahaa Maxamed la yiraahdaa. Maxamed waa haridiin. wuxuu halkan ka baxo wuxuu wacay teleefonkii guriga iyadaa ka qabatay. marka hore ma hadlaayo ilaa qofka ka qabto, marka iyada ka qabato xiriirayso. Allah yakhliik, war nafta ay haysee, war hal mar xataa wajigaaga aan arko kuma arkin 2 bilood 3 bilood ku sii socota. waxay tiri aniga guriga lagu xiray. daraasadii xataa waa joojiyey. macallin ayaa ii yimaada, bannaan ma u bixi kartid la yiri. odaga aabbaheena waa i dhaartay.
marka ma soo bixi kara tiraani maxaa qaban karaa dhageyso hal mar aan ku arko bas yaa waxbuu damacsan waxay tiri marka habeen dambe familka waa casuumayeen oday adeerkaya ayaa casuumay dadkoo dhan way tagayaan ee fadlan iridda ii soo istaag aan is aragno kadibna cayuun bax aabbahay waa halis badan yahay yuusan ku delin walaalkay xataa aabbahay ka khatarsan waaya khalaas waa noo ballan saacaddaas waqtigaas meeshaas aan isku aragno wiilkii oo soo baxay albaabku soo garaaca way ka furta wuxuu yidhi allah yakhalli war waxaan nolol ma ah meeshaan ka cararno warse u carareenaa tiri moolataadii xaggee aadaynaa war wuxuu yidhi aniga may jeceshaadii haa aniga iraac anaa wax walba muratab waayo anaa diyaariyey isku duba riday habeeyey meesha waa ka tegaynaa waa anaga laa xawla walaa quwata gabadhii nakeensu u lahaa boorsadeedii halhaleel ku xiratay wixii ay ku rida kartay ku ridatay waa la soo tegay ninkaa gabadha ciddina abunadaal iyo rag waa baqay gurigii alla mid gabadhi ma joogto xagga fiiri boorsadeedii waxeedii waaba maqantay waa baxdaa leed gabadha waay odaygii habeenkii waa seexday subaxii wuxuu tegay guriga maxamed iyo suuryaanka islaantii u tegay iyo gabadheedna markaasuu yidhi gabadheedanaaba maqan annaga wiilkeen xale ma soo hoyna dheh oo waa israaceen miya ahaa khalaas markii uu dhiman lahaa hadda waay maamadii marka wiilka dhashay suuryaanka ahayd way walwalsanta war wiilkan imtixaansana war waxbaro waa ku kari weyn odagaan gabadhiisa maxaa u geeyay oday waalanoo magaalada dhan laga yaqaano ciddii la hadashaba qori la soo baxayo odayga gaangiistar wuxuu ka naxaya bale odayga gaarigu shidaal ku cabays qorigiisana waa qaatay meel kasta oo suuriyaana degan layidhaah u ka baaraan waa dhaarsan yahay hadduu qabto inuu jarjaruu rabaa odaga marka raadiskaas ku jiraa wiilkii gabadhisay soo socdeen nin sheekha u yimaadeen waxay dhahay sheekhow dhageyso wuxuu yidhi gabadhan waa 17 sano jir anna waxaan ahay 21 sano jir waa isla soo baxsanay masaafo camal isku kaana mehriyo ninkii sheekha wuxuu yidhi waxaas ma jiraan anigu waxaas diin ma waaqaan weyno laba qof oo keligood iska socda si isugu mehrinaa gabadha aw reerkeedii aabaheedii aw reerkeedii aw sheekhii waa soo diid waa soo tageen sheekh kale aadeen madaahibtu way iska badan tahay lubnaaniyiinta qaar shiica waay qaar xambaliyo waa qaar xanafiyo midkii xoogaa macquula oo isku kiin mehri karaa abeelka ishaaraysan 5 wadaad markay soo mareen mid walba diidaayo ayaa kii ugu dambeeyay mid ciyaal suuq ah wadaadnimada iska sheegta wadaad ciyaal suuqa ma garanaysa wadaad ciyaal suuq ah kan oo iska wareersan laftirkiisa markaasuu wuxuu yidhi dhageysta haye anima iga soo bilowdeen uu yidhi maya dheen xaggaa soo marnay sheekii xambaliga ahaa kii xanafiga ah kii shaaficiyada ah kii shiicada ah kii wuxuu dhow nagu soo diiday adaa noo haray dheen kan markay u maanayaan calawi waa calawi waxaa la qolooyinkan shiicada sii fogaatay waaye wuxuu dhahay dhageyso aniga madhabkayga laftirkaygu ma qoraayo gabar iska socota keligeed inaa mehriye laakiin qorshaa idii hayaa u dhahayno markaasay dheen maxaa noo haysaa kiniisada igu dhegan kulaa kiniisada tagano oo see u tagayna annaga muslimiina nahay war muslimka iskaga baxa uu yidhi isku kiin mehriye warqadda ka qaatay ka socda diintaanna waaba ka baxnay dhaa kirishtaana kusoo biirnay dowladuna wadanka diimo badanaa u sharciyeysan dad badan oo kirishtaana jira madaxweynaha kirishtaana cid kastaa kirishtaanka waa noqon kartaa muslimka waa noqon kartaa marka kiniisadaa galuu yidhi
wadaad keebada ka shiicada qaar waxa jira ciyaal suuqyada jiraan oo diinta macnawiina ugu fadhi magaca iska sheeganaya bis calawiinta darabada ugu sijiraan waa bishaar al-asadi ragiis diin xataa shaqo kubaro kuwa saalee shiicadii xataa iska fogeynaysa oo raysa kuwa saalan baayiga gaalada waxba isma dhaabaan kulay wiilkii marka waa ka cadda isaga nafta haysa wuxuu leeyahay kaala kristaana iska dhigna galna halkaan gabadha waxay tirooriyaan dhigayso haddaan baxar ku jiraa tiri haddana aabbahay oo mayal adag haddaan idhaahdo diintii aan ka baxay waraani waxay tiri baata maxay ka soo raaciy adiga way diiday gabadha wallaahi aan galayna tir kaniisad haddaad kaniisad galayn odagina looma noqon kare maxaa sameynaa u dhahay marka meeshaas mid aan qaraabanahay degan yahay Suuriyan aan tagaynaa gurigan ka qaadanaynaa waxaan u noolaanaynaa حياة زوجين أو نوراننا لما قفوا إسقاط عمل دي إسقاطنا الكديدة دي إسقاط أنا سميسنا إسقاطنا كودي وهيات ماشي لك سوكعي ويلك ماشي سوكعي كي قبضي وسكايستاو هل كاسو مركب قرآن لقسي ماليرو بيرأي وكسس ما حوال العقل سوقاتنا والسي نكي ماشي جوجي سوريان كوحي وشجعن إن إسقابان وإسلسوا عربان ماشي إسكدجوين ماشي إسكدجان بيرلي إسكنوغان نكان قبضي هل كاسو نكتوغ سارة أضي قبضي وحيو هذين ووريري أضي قرق سؤولة بوي فاي حافظ كستو هذا حقات ورنكاية هل مركا هوركيني كتاين أضي مركوا فكري كارتو دجي أضي وحوسوك حي مامدي محمد كردشي يا قبردي محمد كلا دلتي بسمة قارو صوصات سوودي تنو وضايدين قريو كوايا وسوودي ميل عدلاو كان markaasuu dagaw dhaxuu dagay oo soo dagay qoriga inta qabsaday oo wuxuu yiri maamadii dhageyso wiilkaaga meeshuu jiro ma sheegay wallaahi alcadiim ma aqaanit maamadii waa iska ooysay waa qaylisay wallaahi ma garanayo dhaxday meeluu aaday ma ogi war iga ma maqlaayo maxaa sameeyaa dhowr jeer aan gabadha ninka iska dhaaf war ninka ayuu ku dilay waa iga diiday walaalow hadaa qabato waxa rabta ku sameeyay ani warkayga waa diiday maamadu iska waayeelwa gabadhii ku jeestay xorshaagnaaya walaalka meeshuu jiro gabadhayda ma iska haysan karo Suuriyaankan qarbanka waxba kala ogeey gabadhii way iska oyseedana wallaahi ma aqaanay tiri dhowr jeer alaftirkayga tala siiyo wax baraa uu iga diiday walaalow waxba aniga ma ka ogi masaasaa wiirha maamadii wuxuu yiri xagga waa sikatay gabadhii inta soo qabtay gaariga soo saarto ka hays maamadii way ka soo daba orod ma gaariga gaarisa meeshan waa cid ayadii abateeda haysataa oo bahal ku cunayaan meesha waa meel kayna maamadii waa iska fariisatay dhulka waa iska ooysay yaa Abu Nadaal gabadhayda waxba ha ku sameeynin gabadhayda dambi kaama galin waxba ma sameeynin ay ku haysaa Abu Nadaal maqlay gaarigu la hadaba gabadhiisa markaa محمد كاهيستا أسألون بصمدو كتغي محمد كان قبرنا وحل هذا هلا ودل أبو النضال هلا أنا محمد كاهيستا habartii meesha looga tagay habartii waxay nasiib ku hashay dadka inta ka soo baxay ayaa meesha ku arko soo kaxeeyay magaalada kale magaalada markii keeneen arintii uga warantay booliiskii la tageen dad malaaniin fiican ay ahaayeen booliiskii wargeliyeen booliiskii marka laba jiho ka shaqeynaya jihana wuxuu raadinayaa wiilkii maxamed ahaa iyo gabadhii hala ahayd uu raadinaya jihana odaygii raadinaya Abu Nadaalkii iyo gabadhii basma ahayd ee maxamed kala dhalatay duqda laga aftuubay odayga gabadhaan ku tagay seero aftuubtay gabadhii soo wado meel waadi ah oo uu ogyahay inaysan cidna iimaanayn ayuu gaariga dhigtay gaariga marka alaabooyin mar hore waxa ku soo talagalay ninkan alaab iyo wax cunitaan fudud iyo waxa zaanguwij xirxiran iyo wax badan oo saaray gaariga wuxuu ku talagalay ninkan 7 bari gabadha inuu meesha ku haysto ninkan markii meesha leeyahay gabadha waa iska weyso xirtir walaalo anima
adeero way leedahay adeero odaygoodii oday weyn waaye adeero aniga maxaa kaa hadlayay tir aniga walaalkay waa mid anigana qof kalaan ah walaalow haygu xadgudbe walaalow gabar yar baan ah adeero waa ku baryayaa waxba haygu samaynin aniga dembi kaama gelin gabadhii halkaasay barooranaysaa ninkaan dharku iska dhigay qorigiiyo soo qaatay gabadhii wuxuu rabuu ka sameeyey waxay samayn kartaa wuu ka xoog badan yahay qoriyuu wataa wuxuu ugu shaqaysanaya kamaa addoon oo kale 5 beriyo meesha ku haysta tacaddi wuxuu ku sameeyey aan caadi ahayn si xuna uu gabadha ugu tacadiyey wax alla wuxuu rabo ku qabtay wuxuu yiri walaalkaasoo gabadhayda ma haysto haa adigana ballan waaye adaan ku haysanaa u taagan oday oday imtixaan waaye gabadhii marka cuntada sameey kan sameey ka sameey waa meel cidna joogan waadi ah baabuurku waxa saaran kaliya alcuna markay dhamaato xurraa inuu ayada goorba diluu rabaa waadiga ku tuuro waadiguna waa meel iyay iyo wax badan iyo bahalo iyo yimaadaan waay qofna ma soo maro ninkan waxba u qorshaysan ilaahay amarkiis ninkan isagoo meeshii jiifa hurda camiiqu galay marka hurda dheer ah ilaahay geliyay waxde markii wax lagu salidaa waa gooni moogtay ninkan hurdu galay gabadhii jaanis ay qoriga ku heshay qoriga soo qaadatay qorigii markay saas u daftay oo xagga la istaagtay ayuu soo booday ninkan deewaan dareen qaba wuu ku soo cararay marka wuxuu rabaa qoriga inuu la qabsado qorigana amaankiisa waa furan yahay markii saas uu soo booday qoriga afkiisa qaba uu maagay iyo xabadu markay madaxa uga dhacday isku meeshii nafta uga baxday oday Abu Nadaal khalaas waa ku daayay gabadhii bas ma ahayd intii hore Allah uu anfaco waay hadda waa is xoreysay qoriga tuurtay gabadhii way soo carartay iyadoo ooyeyso qaylinayso banaanka maraysa qolooyin beeraley ah oo makiinada cagaf wata soo qaadeen way arintii u sheegtay meeshii booliiska keeneen saldhigii ugu dhawaa booliiska soo baxay ninkii meydkiisa meesha ka qaadeen Abu Nadaalki qorigii ay qaadeen gaarigiisa meesha laga kaxeeyay waxa la geeyay magaaladii oo dhan islaantii uu qabay Abu Nadaalka iyo wixii oo dhan sheekadii ay maqleen gabadhii marka waxa loo diray adib sharci wax la yiraahdo macnaha caafimaad baaritaan ku sameeyay gabadhan waxay tiri ninkan inta habeen iyo inta maalin aan la joogo way kufsanay taas ay ugu qasabtay inaan ninkan ka takhaluso dib sharcigi marka waxay soo cadeeyeen kufsi in gabadhan ninka uu kufsaday booliiskii dokumentiyadii wixii soo qaadeen maxamedkii iyo gabadhiina meeshii joogaana loo soo helay booliiskii soo qabtay waa la keenay maxamedkii waxa la yiri walaasha waxay ka takhalustay gabadhan aad la dhuumatay adiga aabaheed sidaas wax u dhaceen waxa soo dhan adiga ka mas'uul ahaa wixii oo dhan booliiskii inta cadeymihii soo wada qaadeen maxkamadda keeneen maxkamadii Lubnaan markii la keenay waxa lagu hormaray arinta Abu Nadaal iyo Basma odagii Abu Nadaal ahaa iyo Basma waxay sheegtay wixii dhacay qaadigii uu dhageystay qaadigu wuxuu yiri dhageyst gabadha Suuriyaanka ah hadda waa la deyn karaa waa hadda albaabka ka baxaysa odaga Lubnaaniga asaga gardaran gabadhana ku xadgudbay aftuubtay gabadhuna difaacu nafsiya samays waa magaca meesha sheekada loo bixiyay qaatilatun waxa la yiraahdaa qaatila shariifa macnaha gabadhii dilaaga ahayd ee sharafta badnayd ayadana wax dishay iyadana sharafteedii macnaha ilaashay gabadhii marka in la kufsaday lagu xadgudbay markii qaadiga wuxuu ogaaday gabadhii waa la sii daayay ninkaana khaatum maxamediisa isaga ilaahay u taala uu yiri waaba tagay kaas wiilkii soo haray wiilkii gabadha la dhuuntay
gabadha ma qabtaa leeyahay markaasuu marna haa leeyahay marna maya cadaynti keen iyo sheekhi kugu mehriyay ma baalan sheeka meesha dawladda ka jirtay markaasuu afka mirig ka sii waa la kuba kufsatay miya adigana haa gabadhu ma kufsan ana raalli ka ahay ku haysaa markii dambe waa la fiiriyay ninka waxa lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah in la laqsiyo wiilkii waaba loo naxariistaa leeyahay hay'adii xuquuqda iyo dadkii waxay lahayn ninkan kufsi uu sameeyay in xabsi dheer lagu xukumay gabadhina ayadana waa la aftuubay moogtay iska baxalay hadda marka ninka qoraaga sheekada wuxuu leeyahay warkii ugu dambeeyay Lubnaan waxay sheegayaan ninkii maartay markii la soo daayay gabadhii inuu guursaday oo macnaha gabadhii uu la dhuudhuumanayay in markaa loo guuriyay aabaheedii waaba gabadhii la dhalatay isaga ayaa dishay marka sheekada la yaab kale halka ay ka dhacday 2008 maxaynu ka baran karnaa idinka la idinka rabaa tafaasiisheeda iyo wixii laga baran karo iyo waxa macna ahaan dhaqamada inta badan dawladaha islaamku ay isugu egyihiin wiil gabar masaafaysanay cidda u diidaysa waxa Soomaali kaliya ma dhaqankan waa dhaqan caam ah marka qisadeena toddobaadkan akhyaaray inta ayaan ku soo gabagabaynayaa fakari aragti waxaad haysaan noo soo qora inta aan qisooyin kale idinkaga soo turjumayo haddii alla idmo iyo toddobaadyada dambe waxaan idinkaga tegayaa meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo